maanta waxaan soo booqannay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa la jiro xeriyihii dadkii ka soo barakacay deegaanadoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii baahi iyo colaad iyo biyo la'aan iyo abaar ay isugu darsantay u yimaadeen ayaan soo booqannay runtii inta wax yaalla waxaa waaye waa wax la dhihi karo wax ilaahay uu ka gurman karo ilaahay uu nooga soo gurmada aan rajaynayno waaye dad aad u dhibaataysan loo diiday abaarta iyo biyo la'aanta ay ka daran tahay dhibaatada uu ku hayo shabaabka dadka markaan warsannay hataa awoodi waayeen inay beerahooda abuurtaan shuruud looga dhigay inay lacag bixiyaan marka runtii madaxweynahana waa kaga mahadcelinaynaa inuu ka dhigo kormeerkiisi koowaad magaalada Baydhabo iyo dadka ugu horeeya uu arkay inay noqdaan dadkii soo barakacay oo duruufaha adag haysteen si gooni ahna uu mas'uuliyad isaga saaray sida sheegtay wasiiradda oo ergi gaar loo xil saaray ahmiyadda koowaadna la siin doono dadkan sidii loogu gurman lahaa deegaanadoodii loogu celin lahaa nolol loogu samayn lahaa cadowga soo barakaciyay loogala hadli lahaa maxay ahayd nin walba deegaankiisii iyo noloshiisa uu ku noqon lahaa ay ka bixi lahaayeen barakacan iyo qaxootigan maanta Soomaaliya maalin ay qaxootinimo ku noolaan karta ma aha ayadoo daruuftan ay jirto deegaankaada in qaxooti ku noqotana waa wax sax ma aha ilaahay baa sakeenay alxamdulillah haddana ilaahay baa naga bixinayo waxaan rajaynaynaa insha Allah taala sida uu madaxweynaha uu koow uga dhigay priority-giisa koowaad in amniga la sugo dadkaana barakacyaalka ahna lagu celiyo barahoodii nololna loo helo waa kaga mahadcelinaynaa annagana waa ka shaqeynaynaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.